arooskii dunida ka yaabshay mid ka mid ah maalqabeennada adduunka wiilkiisa, balse hadalhaynta ugu badan oo qof walba hadal haya ayaa ah imise lacag ayaa ku baxday arooskan. Wuxuu yahay xaflad aroos oo socotay muddo intaan leege. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibada sharafta badan, halka inaga daawanayso waa janaalkeena Fasoon. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, waxaan kaa codsanayaa inaad janaalka subscribe inoo saarto, gambaleelkan aad furtay si muuqaalada aan usoo gudbino oo noqoto qofka ugu horeeya ay daawado. Sidoo kale waxaan kaa codsanaynaa muuqaalka inoo laagarayso, waayo laagta waxay naga caawinaysaa in muuqaalka saaxiibo badan gaaro. Wixii fikir iyo talaana nagula wada qaybta faalada ama commentiska. Mahadsanidin. Aan gudagalno mawduuceena maanta aan ku falanqeynayno xafladii arooska ay dunida qabsatay, taas oo dhalisay hadalhayn kala duwan. Intaan u gudagelin xafladda iyo hadalhaynteeda iyo saameynta ay samaysay, waa kuma qoyska reer Mukesh Ambani. Mukesh Ambani waxa uu dunida ku soo biiray 1957. Waxa uu ku dhashay dalka Yemen, kadib waxay u soo guureen dalka Hindiya isagoo aad u yar. Mukesh Ambani waxa uu ka dhaxlay ganacsigan oo maanta leeyahay aabihiis oo lagu magacaabay Ambani. Mukesh Ambani waa ninka ugu taajirsan dalka Hindiya, sidoo kale waa ninka ugu taajirsan qaaradda Asia. Adduunkana waxa uu kaga jiraa dadka ugu taajirsan kaalinta 9aad, isagoo hantidiisa lagu qiyaasay 120 bilyan. Mukesh Ambani ganacsigiisa waxa uu ku tiirsan yahay Reliance Industry-ga sida warshadaha kiimikalka, isgaarsiinta, tiknoolajiyadda, gaaska, saliidda. Intaas ayuu ku tiirsan yahay ganacsigiisa. Xafladan arooskana waxa uu u dhigay wiilkiisa ugu yar ee lagu magacaabo Anand Mukesh Ambani. Xafladan arooska waxaa ka soo muuqday dad kala duwan oo dunida saameyn ku leh. Haddaba xafladani waxa ay socotay muddo 7 bilood ah. Waxa ay bilaabatay bishii hore December 2023 sanadkii hore, waxaana la soo gabagabeeyey 12 Julaayo sanadan aan ku jirno 2024. Waa kuma lamaanaha isguursaday oo xafladooda arooska muddo intaas leeg socday. Lamaanahan ayaa lagu kala magacaabaa Anand Mukesh Ambani oo ah wiilka ugu yar qoyska reer Mukesh Ambani, iyo gabadha lagu magacaabo Radhika Marjantiga. Radhika Marjantiga sida ka muuqato Mukesh Ambani waa nin taajir. Radhika Marjantiga iyaduna waxay ka soo jeedaa qoys hodane, maxaa yeelay Hindi dhaqankooda ayaa ah ama culture-kooda in dadka ay u nool yihiin dabaqyo kala duwan sida dabaqad sare, dabaqad hoose iyo dabaqad dhexe. Marka Radhika Marjantiga waxay ku tusaysaa inay ka soo jeedo qoys taajiriin ah ama qoys hodan ah, maxaa yeelay aabaheed waxa uu ka ganacsadaa waxyaalaha daawooyinka ah, hantidiisana waxaa lagu qiyaasaa 90 milyan. Balse maxaa ka dhigay arooskani ama xafladan aroos mid dunida ka yaabsatay? Maxaa yeelay qoyskan reer Mukesh Ambani xafladan arooska waxay iskugu keeneen qof kasta oo dunidan saameyn kala duwan ku leh. Haddii ahaan lahayd fanaaniin, siyaasiyiin, actoro, dad influencer, feeriyahano, qof kasta oo dunida saameyn ku leh ayay waxay ka soo muujiyeen xafladooda oo socotay muddo 7 bilood ah. Xafladan intii ay socotay waxaa ka soo muuqday dad kala duwan oo ugu horeeyaan labadii ra'iisul wasaare hore ee dalka Ingiriiska, Tony Blair iyo Boris Johnson. Sidoo kale waxaa ka soo muuqday feeriyahanka caanka ee John Cena. Sidoo kale waxaa ka soo muuqday dhammaan aktarada Bollywoodka iyaga oo isku duuban, haddii ahaan lahayd Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, Balwan, Aulio Khan, Sunil Shetty. Qof kasta oo Bollywood oo caafimaad qabay oo uu ka soo muuqday xafladda arooska ah. Sidoo kale waxaa ka soo muuqdeen bilyaneerada reer Amerika, Bill Gates iyo Mark Zuckerberg. Sidoo kale waxaa ka soo muuqday xafladan arooska Priyanka Chopra iyo saygeeda Nick Jonas. Sidoo kale xafladani waxaa ka soo muuqday raabarka reer Canada Justin Bieber, Rihanna, Remy iyo dhammaan qof kasta oo dunida saameyn kala duwan ku leh ayaa ka soo muuqday xafladan arooska. Xafladan goobta lagu qabanay arooska waxaa lagu qiyaasay inay ka soo muuqanayeen dad dhan oo lagu qiyaasay dadka iskugu imaanayeen 16,000 ilaa 15,000 oo qof. meel qaadaysa ayaa xafladan lagu dhigay. Xafladani waxa ay ka dhacday Hindiya, caasimadeeda ama maxalla magaalada Bombay ay ka dhacday xafladda. Xafladan arooska waxaa ka soo muuqday gabagabadeedii sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi. Sidoo kale xafladan arooska waxaa joogay madaxweynaha ugu sareeyo FIFA oo loo magacaabo Giovanni Infantino. marka
waxay saameyntaas arooska ama xafladda inay yeelato waxaa sababay dadkaas kala duwan oo kasoo muuqdeen. maxaa yeelay sidoo kale xafladdan performanceyo kala duwan ayay kusoo bandhigeen Rihanna iyo Justin Bieber performancegiisa ama inuu arooskaas hees ka qaado waxa uu ku qaatay lacag gaarayso 10 bilyan. Rihannana waxay ku qaatay 8 milyan. sidoo kale xafladdan waxaa ka soo muuqday raabarka weyn ee wiilka Soomaaliyeed ee heesta dhalashada dalka Canada Keenan, kaas oo qaaday heestii Flag oo ka qaaday koobkii adduunka 2010 oo lagu qabanayay qaaradda Afrika, wadanka Koonfur Afrika. heestii uu furitaankiis ayuu wuxuu ka qaaday showga ee xafladda reer Mukesh Ambani. balse hadalhaynta ugu badan oo aadina isweydiinaysay maskaxdaada ku jirto ah imise lacag ayaa ku baxday xafladdan arooska oo ay ka soo muuqdeen dadkaas tirada badan oo dunida saameynta ku leh. xafladdan arooska waxaa lagu qiyaasay ama jaraa'idada ay qoreen inay ku baxday lacag kala duwan. haddii la qiyaasane oo lagu qiyaasay lacag dhan 300 oo milyan ilaa iyo 600 oo milyan lacag u dhaxayso ayaa lagu qarash gareeyay xafladdan arooska. waxyaalaha kale oo cajiibka intii lagu jiray xafladdan waxaa ka mid ah in markii ay dhamaatay xafladdani in qoyskan reer Mukesh Ambani ay qabsadeen ama kireysteen 200 oo private jet oo ah diyaaradaha sida gaarka loo leeyahay am private jet-ka kuwaas oo daabuleynaya ama dib u celinaya dadkii martida ahaa ay ka soo muuqdeen xafladdii arooska. 200 oo private jet wax fudud maahan. sidoo kale arooskan lacagtaas ayaa ku baxday 300 ilaa iyo 600 oo milyan. balse qof kasta sidoo kale ujeedka arooskani uu isweydiinaya maxay tahay ayadoo la ogyahay dalka Hindiya inay tahay dal sabool ah, dadkooda faqiirin yihiin, nolol hoose ku nool yihiin. sidee qoyskan ujeedka ay ka leeyihiin maxay tahay ee uu qarash gareynayaan lacag intaas leeg xaflad aroos ah? waxaa laga yaabaa in iyaga aragtidooda ay ku beesgareeyeen maadaama ay yihiin dad tujaar ah oo hanti haysto in ay rabaan in maxaa la lahaa networkooda ganacsiga ay sare u qaadaan oo ay bartaan dad badan. hadda adigaa daawanaysay waxaa laga yaabaa ka hor xafladdan arooska ee qoyska reer Mukesh Ambani inaadan hor u maqlin, balse xafladdan ay dhigteen oo ay ahayd in maxaa la dhahaa aa ku baratay. sidoo kale jaraa'idadu waxay qorayeen in Mukesh Ambani qorshihiisii uu noqday mid guuleystay. maxaa yeelay mar kasta oo adiga wax saameyn weyn samaysay adigoo dunida magac kale hanti sii haysatay waxaa sii helaysaa network badan oo dad badan inay kusii bartaan magacaaga, ganacsigaaga, inuu brandigaaga hataa sare u kaco. marka waxaa laga yaabaa inay ujeedkaas ka fiiriyaan, balse dunida dadka ku nool waa kala aragti, waa kala fikrado, qof kasto fikrada loo yeeyahay. haddaba daawade adigana daawanayo muuqaalkan aa kula wadaaga xogtiisa, sidee u aragtaa xafladdan arooska? ma tahay mid adiga aa ku dhiirigelinaysa ama mudneed in qarashkaas loo bixiyo, mise wax ka habboon ayaa maskaxdaada ku jira oo ku samayn lahayd? maxaad ku samayn lahayd haddii arooskaaga lagu dhaho ku dhiga lacag dhan 300 oo milyan? maxaad samayn